waxaan jeclahay inaan dhageystayaasha doonaya inay nala soo xiriiraan barnaamijka intuu socdo telefoon noo soo diraan ay naga soo wici karaan numberkan 442 eber 7 hal 8 laba 7 9 aan ku celiyo 442 eber 7 hal 8 laba 7 9 7 waa dhageystayaasha doonaya barnaamijkan toos inay uga qayb galaan oo ay telefoon iminka ay nagu soo wici karaan waxaana hadda ku jiraba oo uumiye nin la yiraahdo oo galguduud jooga السلام عليكم waatahay magacaaga noogu bilowyo meeshaad galguduud ka joogtid ka bacdina noo soo koob dhageystayaashu aad bay u badan yihiin iyo dadka doonaya iyo martidaba magacaygu waa quumiya dhammaan qolad BBC iyo dhammaan wayna salaamaya waxaan joogaa galguduud dowlad goboleedo ma kamid tahay gobolka Hargeysa ma kamid tahay Soomaaliland ma kamid tahay mase waa gobol mudnaanta ninkii keensada ayaa iskale oo mudnaan way keensadeen Soomaaliya way ogtahay balse hadda ma kamid yihiin dowlad goboleedada Soomaaliya ma kamid yihiin taas weydiiyo yaa weydiina anima ay weydiinay mise wasiirada iyo martida kale ee barnaamijka ku jirta iyo xildhibaanka iyo wasiirka Soomaaliland iyo keed doonaysaa in aad toos u weydiiso waxaan weydiinayaa wasiirka wasiirada iyo madasha shirka iyo dhammaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay uumiye galguduud jooga wasiir cadani waa maqlaysaa ninkaasi wuxuu yidhi maamul goboleed baa tihiin ma tihiin su'aal buu ku weydiiyey waan uga jawaabay anaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland afhayeenkeeda ah anaana halkan maanta u fadhiyaa waxaad moodaa inaad dadku waa la kala badan yahay meesha ku jira marka waxaan doonayaa inaad si fair u hagto programka waa iga codsi qodobka kale waxa weeye jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliya waxay la midowday iyadoo dal madax banaana 25 sanadood rubuc qarniyana maanta way madax banaana intii baad ku soo celinaysaa saacatul wasiir ninkaani wuxuu ku yiri maamul goboleedyadii wadanka juqraafigi ma ku jirtaan mise kuma jirtaan dal baanu nahay cabdi nuur soo celinaya waxa faatiska jira waxaad moodaa cabdi nuur runta haddii aan kuu sheego waxa weeye waxa su-aashu siday tahay baan uga jawaabaya ayaa adigu wariyaa tahay waa inaad deeseer ka noqotaa dhinac cidna saarin maya ha iska kay handadin aniga anigu waxaan rabaa waqtiga aan haysanay inaanu ku xisaabtano iyo waxa dadku ay ku weydiinayaan un kaliya inaad ka jawaabto su-aasha ay weydiinayaan uga jawaabayo waqti baa nagu socda ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland cabdi nuurow aftibay markii horena xor bay ahaayeen oo dal xor ay ahaayeen markay Soomaaliland la yimaadeen malaadin bariga wada jirtay baan u maleynaya maxaa kaasiya cabdi nuur Soomaad garan imikana waa dal 25 sanadood xora war anagu ma diidanin walaaltinimada iyo Soomaalinimada midaan isla fahanay laakiin Soomaaliya kama tirsanin kama tirsanin anagu Soomaaliya waa madax banaan oo madax banaanidiisa haysta cid ay u daba fadhiisanayaan adduunka aanay jirin haday Soomaaliya tahay iyo haday maxaan ku dhahdaa caalamka adduunka oo dhan ay tahay diigna uu daatay cid Soomaaliland oo arinta ka gabanaysa aanay jirin weena taafaantaan cabdi nuurow waana ciyaar kula noqon kuna ixtiraamta ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland maxaan ku dhahdaa waa tahay saacatul wasiir waxaan adigoo wariyaa dooda u dhaxaa ku sheegtay wax wacan ma wanaagsan cabdi nuurow anagu waxaan u aragnaa waxaan u aragnaa wax la qoostay oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynuhu ugu baaqayo ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba in maanka lagu hayo muddo 25 sanadood oo Soomaaliya hawlaheeda iyada wadatay Soomaaliland hawlaheeda dal madax banaan bay ahaayeen muddo 25 sanadood dabeedna doorashadeeda iyo nidaamkeeda iyo hawlaheeda iyaga ayaa ka mas'uul ah waxaa kaloo raacsan rubuc qarnigaas midnimada Soomaaliya ka sheekeynaysa leedahay waa wacantay ama waa sidan ama cid kale ay mar walba dhinaca ka soo gelinayso iyo maanta 30 sanadood bay ahayd tan maanta Soomaaliland iyo Soomaaliya ku kala maqan yihiin waa 25 sanadood waa rubuc qarni marka cabdiyo waa tahay 25 ka sano cadane Usman aan ku dhameeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland war murtiyeedkiisa salkiisa wuxuu yahay Soomaaliland qayb kama aha Soomaaliya weligeedna ka noqon mayso hadday federal tahay iyo haddii ay si kale tahay waxa kale oo raaca waxa weeye cabdi waxaanad u oranayaan Soomaaliya beesha caalamka sidaas ay leedahay
مدة جمهورية الصومال ضل حرب هاد 1960 مرتي محاكو هذا النبي اللي يسويه 1960 جا تستور كأن سنتي في جمهورية المواطنين جمهورية الصومال لوي تيجينوا وكسورتي مركا waxaan qabnaa midnimada lafkeedu فيري عثمان عالمي فيري رياليتيga xaqiiqda aan u nimaano 25 sanaad sheegtay عبد النور 25 sanaad sheegtay in aad ka go'deen Soomaaliya 25 sana wax aqoonsiyo ma haysan Eritrea iyo Ethiopia waad ogad siday ku kala tageen mar walbana dad badan oo mas'uuliyiin ah oo Somaliland ama Soomaalida kala ah oo aad isaragtaan waxa la yiraahdaa war ka qayb qaata Soomaaliya siday ku hagaagto hadhow saad doontaan ku kala taga ama isugu taga doorkiini kama idin soo bixin Soomaa عبد النور ريالتيga Soomaaliland waa kala jaad ريالتيga Soomaaliya iyo Soomaaliland waa kala jaad waa inaad fahanto jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaheedii iyo ummadeeda muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland afti bay qaadeen 2000 maxaan ku dhahdaa one key 97 point something 5 maxaan ku dhahdaa kuwansixiyeen inay go'een waxaad kaloo fahantaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladdeedu may diideen Soomaaliya la hadlaan oo ay meel wax wada dhigaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland wada hadal beesha caalamka oo tiishan idin socday oo Turkiga iyo meelo kale aad ku kulanteen ma cidda burburisay waa Soomaaliya waxa weeye anagu daacad baanu ka ahayn waxa weeye adduunkuna maxaan ku dhahay daacad buu ka ahaa markaad Somaliland daris keenteen buu shirkaas u burburay wuxuu kala burburay markii heshiiskii Somaliland iyo Soomaaliya Cabdi Nuurow ee hawada lagu heshiiyay ee labada madaxweyne saxeen dib looga noqday marka waxa weeye Somaliland ciladu halkaas ay ka taagan tahay mar walba diyaar buu yahay nabadgelyo walaaltinimo ku jirta ee laba dal oo walaal ah oo Somaliland iyo Soomaaliya sidii 60kii ka horeeyay maxaan ku raahdaa ahaada oo isu damqada laakiin waxa weeye waxa cad ummaduna ay cadeynaysaa inaan waxa Soomaaliya maanta ay qorshatay aad waxa aan ku sheegaysaa adigu waa tahay